500 oo kartoon oo kartoonkii bay ku jiraan 12 dhalo oo khamri ah ayaa maanta halkan lagu burburiyay teetana lagu gubay booliska ka howlgala degmada Muqdisho ayaa dhawaan soo qabtay container lagu soo qariyay khamri isla markaana waxay u gudbiyeen laamaha kale ee booliska dalka iyo garsoorka waxaana maxkamadda gobolka Banaadir ay amreen in khamrigaasi la gubo maandooriyahan ayaa la sheegay inuu saameyn ku yeelanayo bulshada isla markaana ganacsato ay ka soo dejinayaan marsada Muqdisho asa ahaatee ma aysan caddeyn boolisku ilaa hadda haddii ay jiraan shakhsiyaad loo soo qabtay keenista maandooriyahan sidoo kale waxa maanta halkan lagu gubay ku dhawaad 20 kartoon oo ay ku jireen xanjo dhacday waxa la sheegay xanjadaasi iyadoo ay ka harsan tahay xilliga isticmaalkeeda 10 maalmood in degdeg laga soo dejiyo isla markaana boolisku ay qabteen halkan maanta waxa ku sugnaa oo lagu burburiyay laguna gubay khamrigaasi iyo xanjada dhacday xubno ka socda taliska booliska iyo maamulka degmada Xamar Jajab gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Guhaad Sheekh Xasan waxa uu ka hadlay maamulkooda waxa uu kala socdo khamrigaasi degdeg laga soo dejiyo iyo maanta howlgalka la sameeyay ee khamrigaasi lagu burburiyay runtii waxaan dareemayaa booliska Soomaaliya gaar ahaan booliska hadda ka shaqeynaya dekada iyo saldhigga Xamar Jajab in shaqo qurux badan ay qabteen ay ku amaanan yihiin saraakiishaas ku magacaaban labada saldhig shaqada quruxda badan ay qabteen dadka ganacsatada ah ee Ilaahay xoolaha siiyay ee xoolahooda raba in ay ummadda ku halaagaan waxaan leenahay ka jooga waxaan rajeynayaa in xiraalinta aan la joogto ayagana sharciga la waafajin doono afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Sadiq oo dhankiisa la hadlo warbaahinta waxa uu faahfaahin ka bixiyay khamrigaasi maanta la gubay halkana lagu burburiyay isla markaana laga qabtay marsada Muqdisho waxa uu sheegay in ciidamada booliska ee ka howlgala degmada Muqdisho ay khamrigaasi oo la qarinayay laguna soo qariyay container ay gacanta ku dhigeen waxaad u jeedaan meeshan gadaasheeda waxa yaala 500 oo kartoon oo khamri ah nooca la yiraahdo Signora Daniela oo kamid whisky pure whisky ah ciidanka saldhigga booliska dekada magaalada Muqdisho ee hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo ka hor jira howl maalmoodkeedii caadiga ahaa ayay 28 bishii Maarso waxay gacanta ku soo dhigeen agabkan oo dalka la soo galin rabay waxa kale oo la jira oo aad dhinaca kale iyadana arki doontaan oo hadda meesha aan ku gubaynaa 183 kartoon oo ay ku jirto xanjo dhacday waxa xusid mudan agabkaas wuxuu dalka soo galay 28 bishii Maarso waxauna dhacayay 9 bishii Abriil taasoo micnaheedu tahay 10 cisho gudahood soo dhicitaankiisa 10 cisho ka dhiman tahay ayaa dalka la soo galiyay si shuruucda dalka u yaala ay qabaana 6 bilood ka yar hadii ay ka dhiman tahay shayga inuu dhacayo lama soo gelin karo dalka oo lama keeni karo lagama ganacsan karo agabkaas aan idin sheegnay waa 500 oo kartoon oo khamri ah iyo 183 kartoon oo xanjo ah oo ayaduna dhacday ku-xigeenka xiriiryaha guud ee qaranka Farxaan Maxamed Xuseen iyo waliba taliyaha hoggaanka canshuuraha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa dhankooda goobjoog ka ahaa burburinta iyo gubista khamrigaasi waxay ka hadleen maandooriyahaasi laga soo dejiyay marsada Muqdisho waxaana ay sheegeen in marnaba loo dulqaadan doonin in ganacsato ay ku holan yihiin in gudaha dalka ay soo galiyaan maandooriye waxaan sharciga horgeyn doonaa qof kasta oo lagu qabto waxaan oo kale ciidanka booliska Soomaaliyeedna har iyo habeen ayuu u taagan yahay midaas waana la fulinayaa waxaan u mahad celinayaa ciidankii ka soo shaqeeyay shaqadan qiimaha badanna soo qabtay diidayna in ay bulshada dhex galaan maandooriyahan aad u jeedaan oo runtii haddii uu bulshada dhex geli lahaa wax badan bedeli lahaa keeni lahaa amni darro iyo khalkhal keeni lahaa cadaawad bulshada dhexdeeda waxa yarka ah ee aad si xalaala u saarato oo ganacsigu ku ogol yahay oo ku dambaabayn ayaad ku dujaaraysaa ha aadin qaad hadda waa mamnuuc ka leexo ha gelin waa la qabanayaa waa khasaaraysaa khamri waa khasaaraysaa ilaahan idinku dhaashay xilligii iidii caruurteena waxa loogu tala galay xanjadaas iyo bahashaas halkaas taala oo hadda hortiina ku gubi doono in ilmaheenni la siiyo muxuu noo dhaamaa marka ganacsada qofka sidaas samaynaya midka qoraga wata ee al-shabaabka ah ee xabadda ku soo ridaa oo qaraxa u dhigaya oo ummadda dhibaataynaya muxuu ka duwan yahay bal adba jawaabtu qof kasta muxuu ahay waa muuqataa waadax waa marka laga yimaadeen maanta halkan lagu burburiyay oo lagu gubay khamrigaasi ma aysan sheegin dhinacyada kala duwan ee halkan ku sugnaa cid loo soo qabtay
khamrigaasi laga soo dejiyey marsada muqdisho hase haatee waxay ka digeen ganacsatada ka howlana digniin u direen in maandooriyahaasi ay ka soo dejiyaan dekedda muqdisho Salmaan Xaaji Xamdiraagi Soomaali Cable muqdisho